سالسلي باني صبح سيروي باشر سامر قاتل الانسان السلام عليك باي xafladda qalinjabinta ayaa loo qabtay 17 xarumaha ECE ee Hargeysa iyo Berbera waxaana qabanqaabinayay xafladdaasi bulshada hay'adda Faro Foundation ayaa iyadu taageereysay guud ahaan ardayda halkani ka baxday ayaa ah 150 arday waxaanay u gudbi doonaan waxbarashada rasmiga ah xafladan waxay ahayd mid muujinaysay tayada iyo horumarinta dugsiyada Soomaaliland Faro Foundation waxa ay maalgelinaysaa waxbarashada mustaqbalka Soomaaliland munaasabadan dhiirigelinta iyo maamuuska waxa ardayda dugsiyadaasi kala qayb galay waalidka ardayda barayaasha dugsiga maamulayaasha mas'uuliyiinta hay'adda Faro Foundation iyo mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland furitaankii dugsiyadan lagu furayay waxa ka hadlay أحمد إسماعيل عبدي أقاسمها وحبرشة توسكا وسارة وحبرشة آمنة عسير مغن قدوميها وحبرشة قبل كمرود الشيخ إيو محمد عمر هايدا فارو فاونديشن وحنوهم بليانيا عروتين يرير إساكا شعني يقولوح لكم مقطو يعلمكو أنيقو وهم بليانيا هلكا يكون قدبي كنا رجينيا إنا مستقف في عن هلكا كسيودة دونان فارو فاونديشن هايدا فارو فاونديشن الله وحوينا كردقو mid wax weyn taaba gasha dadaalka ay ugu jirto wasaaradda waxbarashada ay la haysana waa mid mira dhalaya Allah ka jisaysiyo waxa saaka aynu u fadhinaa furitaanka xafladda qalinjabinta ay ardayda iskuulada dhammaan kala duwan inagoo saambal ahaan iskuulka ku furayna guud ahaan waxa weeyaan in ardayda ka baxaysa waxa weeyaan iskuulada 14 iskuul ay hay'adda Faro Foundation gacanta ku haysaa 14 iskuul waxa ka qalin jabinaya arday dhan 744 arday macallimiinta dhigta waa 260 macallin horta ku soo dhawaada xafladani waa xafladani tii saddexaad cohortkii saddexaad hadda ardaydii saddexaad group saddexaad qalin jabinaya aad baan ugu faraxsanahay ma sha Allah hambalyo de wada iyo noqonitan tii primary-gii baad sugaya dugsiga sare baad sugaya jaamacadii baad sugaya insha Allah waxaan aad ugu hambalyeeynaa oon hambalyo kun jeer leeyahay ardayda KG-ga ka qalin jabinaysa ee u gudbaysa fasalka koowaad waxaan leeyahay ardayay hambalyo halka ka sii wada insha Allah bismillaahi kariim noqda kuwa dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda baan faacay insha Allah ubadkan oo ah ubaxa dalka waxa muhiim ah in caafimaad ahaan jidh ahaan iyo maskax ahaanba la dhiso waxaanay ka muuqataa dadaalka la geliyay ardaydaasi waxaana gacanta ku haysa hay'adda Faro Foundation dirayskooda nus saacahooda dhismaha dugsiga iyo guud ahaan agabka kala duwan iyo waliba macallimiinta iyagu gacanta ku haya gunaanadkii ardayda 14 dugsi sanadkan ka gudbaya waxa la gudoonsiiyay shahaadooyinkii ay kaga gudbayeen qaybta barbaarinta ee KG-ga waxaanay ardaydaasi ahaan doonaan qaar u gudbaya isla dugsigaasi qaybtiisa hoose